Waxaa saaka degan gebi ahaanba magaalada Dhuuso-Mareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug oo maalnimadii shalay dagaalo culus ay ku dhex mareen ciidamada hoggaanka Ahlusunna wal Jameeca iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Ma jirto wax dagaalo ah oo laga soo wariyay aroornimadii hore ee saaka, waxaana magaalada Dhuuso-Mareeb ee gobolka Galgaduud xaaladeedu ay tahay mid degan. Dadka ku sugan magaalada Dhuuso-Mareeb ayaa waxa ay soo sheegayaan in xaaladdu ay tahay mid degan, isla markaana aysan jirin wax dagaalo ah oo dhex maraya ciidamadii shalay ku dagaalamay magaalada Dhuuso-Mareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Wariyaasha ku sugan magaalada Dhuuso-Mareeb ayaa waxa ay soo tabeynayaan in hoggaanka ugu sarreeya Ahlusunna iyo madaxii hore ee xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Ali Xasan Saakay ay isku dhiibeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Dhuuso-Mareeb. Madaxii hore ee xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Ali Xasan iyo hogaamiyaha sare ee ururka Ahlusunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax ayaa la xaqiijiyay maanta inay isku dhiibeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan Dhuuso-Mareeb. Sidoo kale dadkaas dhiibay ayaa waxaa ku jira wasiirka amniga Galmudug Saadiq Sheekh Yuusuf Dirac oo ka tirsanaa Ahlusunna wal Jameeca, isla markaana la sheegay isaga iyo gaadiidkiisa inay isu dhiibeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Dhuuso-Mareeb. Amniga hogaamiyaasha Ahlusunna ayaa waxaa la wareegay Generaal Mascuud oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, isla markaana ku sugan gobolka Galgaduud, waxaana uu sheegay in gebi ahaanba amniga hogaamiyaasha Ahlusunna la xaqiijin doono. Wararka qaar ee soo baxaya ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in gaadiidkii ay lahaayeen Ahlusunnadii shalay ka dagaalamaya Dhuuso-Mareeb gebi ahaanba ay la wareegeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Guud ahaan waxaa degan magaalada Dhuuso-Mareeb oo shalay dagaalo culus kaas oo dad badan ay ku hoobteen oo dhex maray ciidamada Ahlusunna wal Jameeca ee muddo maamulayay halkaasi ciidamadii dowladda ee dagaalada kula galay halkaasi. Weli wax war ah kama soo bixin dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan madaxweynaha cusub ee maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ku aadana soo dhiibitaanka madaxda ugu sarreysa Ahlusunna wal Jameeca ee isu soo dhiibeen dhanka maamulka Galmudug. Isku soo wada duubo xaaladda ayaa haatan mid degan, isla markaana ma jiraan wax dagaalo ah oo saaka laga soo warinayo.